أقول ما كسكر صدي ونجيها ليسيو بين حمر كمان ونجيك وحالي تذوب بقول $1 كان تكنا تذوب بقول $1 كاساني كنت تذوب kulanti wacan oo wanaagsan asxaabteena qaaliga ee tirada badan ee halkan sim kasta iyo mar kastaba nala joogta sida wacan nala socota aad iyo aad ayaa u mahadsantahay saaxiibayaal Allah haydin sharfo ayaana leeyahay saaxiib meel walba aad joogtaan ugu horeyn haddaad ku cusubtay saaxiib channelkeena wax bixinta wararka subscribe ku samee like na saar muuqaalkan isuu sii gaaro dad badan oo kamid ah asxaabteena kale si ay u soo biiraan saaxiibada wacan ee adigoo kala waad ku mahadsantahay la jaanqaadkaaga ee saaxiib maanta waxaan ka hadli doonaa arrin 24 saac dadku aad uga murugeysnaayeen taasoo barta YouTube-ka la isla dhexmariyay runtii waxay tahay hooyo Soomaaliyeed oo isla waqti xaadirkan joogta magaalada madaxda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho taasoo ka sheekeynaysa qiso ku dhacda isla waqti xaadirkana murugo leh taasoo tahay runtii in ay wiilkeedii agoonnimada iyo silica iyo baaba ay ku soo korsatay kadib markii uu weynaaday laga xaday taasoo isla waqti xaadirkan ku sheegtay in gudaha Soomaaliya ama gudaha Muqdisho ay wali laga dhoofin isla waqti xaadirkan ay joogto in Muqdisho inankeedu lagu hayo taasoo kadib markii inankeedii codsatay ee baraha bulshada ka hadashay sida TV-yada ay ka hadashay in la weydiiyo lacag baada taasoo lacag dhan la weydiiyay $700 Mareykanka ah runtii qof silic iyo baaba ku soo kordhiyay qof uu dhalay runtii ma helayo ila tahay in aanu awoodin in $700 iska bixiyo runtii waana arrin aad Soomaalida ugu soo badanaya runtii kaasoo ah in lacag madax furasho ah kadib markii caruurta laga xaday gudaha Soomaaliya la weydiiyo dadka waalidiinta sidoo kale barihii ugu dambeeyay daawadal waxa soo badanay in caruurta la xado kadib la dhoofinayo laakiinse imaka waxa nasiib darro aad u weyn oo xukuumadda dawladda federaalka hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha cusub in ay amniga Muqdisho kaliya ay sugi waayeen runtii arrinkaas ayaa arrin laga xumaado ah sidoo kale gudaha Muqdisho inta caruurta la xado ayaa iyadan la dhoofinba halka wixii lagala bixi karay lagala baxa biliyaha kariyaha iyo beerka noqota meelaha ugu muhiimsan sidoo kale markaas lagu soo tuuro istriida meelaha gudaafadaha sidoo kale runtii arrinkaas ayaa noqday arrin aad baraha bulshada Soomaalidu ay ka warwarsantay haddaba gabadh la yiraahdo Hana Abuukar oo kamid ah iyadoo dadka dhoofisa carruurta yaryar ayaa lagu tuhmay in ay wiilka xaday laakiinse wali baaritaan ayaa ku socda hooyadii sidoo kale hooyada ayaa ka dhex baranaysa gurigeeda Muqdisho ku yaala sidoo kale barta Facebook ayay TV-yada ku baahiyeen in hooyadan ay dhibaato aad u culus soo gaadhay runtii taasoo kadib inkeedii la weydiiyay in ay ku madax furato $700 Mareykanka hooyadan oo magaceeda lagu magacaabo hooyo Shamsa ayaa madaxda Soomaaliyeed ugu waaweyn ha noqoto madaxweynaha ha noqoto ra'iisul wasaaraha dadka xilalka ka haya dawladda federaalka Soomaaliya ka codsatay in si degdeg ah arrinkeeda wax looga qabto hooyadan Soomaaliyeed ayaa ugu dambeyn codsi u diratay madaxweynaha dalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dadka xilalka ugu sareeya ka hada ra'iisul wasaaraha noqotay ra'iisul wasaare ku xigeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ruuxantii dadkaas oo dhan ay codsi u diratay in aan haysan iyadoo $700 ay ku soo korisay wiilkeeda silic iyo hoog iyo baaba taasoo runtii markii uu u weynaaday u kaalin qaaday ay dad balaayo oo meel laga soo diray la garanayn ay gacanta ka qabsadeen runtii arrinkaas ayaa warwarkeeda leh sidoo kale dadka caruuraha ka xaday gudaha Soomaaliya isla waqti xaadirkan Muqdisho ayaa xadka goostay taasoo gabadh lagu magacaabo Hana Abuukar dadku ku maleynayeen taasoo iyaduna cadeysatay inay dadka xado laakiinse gabadhan ayaa kadib markii dalka lagu xiray kadibna wanti laga siiyay ayaa hawada ka baxday laakiinse waxa hadda uga tagtay dad ka shaqeeya gudaha Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho dadkaas ayaa loo maleynay wali xaqiiqada cagta may keenid dawladdu halkani waa channelka xog bixinta wararka saaxiibada